بري oo khamiisa waa 8 waa yawm tarwiya maalinta jimcaha waa sagaalaadkii maalinta ciida ah oo tobnaadka ah waa maalinta ay xujaydu ugu mashaqada badan yihiin oo ay jamaraadka iyo xalqigii iyo samaynayaan sidaa markay tahay waxaad garanaysaan waa 10 maalmood ee Ilaahay uu ku dhaartay subxaanahu wa ta'aala waa maalmo aad u khayr badan kuwa acmaasha gudanaya mooye kuwa kalena mina sunna ay tahay inay soomaan iyagoo la qaybsanaya dayuufur raxmaan oo waajibaadkooda gudanaya mashaqada ay ku jiraan inay iyaguna cibaado iyo soon ku kabaan waa maalmo u baahan saamax inuu bato oo dadku iscafiyaan waa maalmo u baahan dadku in quluubta la isu furo waa maalmo u baahan cibaadada aad samaysaa inay ka fadli badan tahay cibaadooyinka aad muddada kale oo dhan ku soo jirtay taas markaan intaa ka gudbo waan ku booriyayo ciddii aan soo soomin maalmihii hore waxaa inoo haday waa berri oo khamiisa oo yowmu tarwiic ah oo xujaydu ay mina aadayaan iyo maalinta sagaalaadka ah oo ah maalinta alxaj alcarafa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee la istaagayo banka carafo ee xajka lagu tilmaamay inay maalintaas tahay inaan soonno haddii ilaahayda intaa markaan ka gudbo waxaan uga mahad celinayaa guud ahaan baarlamaanka iyo guddoonkiisaba munaasabadan furitaanka saanu la soconno waxaa maanta waddanka ka taagan abaaro yani hadda ma odhan kara abaartii baa taagan laakiin waxaa soo dhacay abaaro saamayn badan yeeshay oo cuntay kii cagaarka ahaa iyo kii yaabiska ahaaba abaartu waxaan nahay raadkii ay ka tagtay oo ah dadku mawaashi bay tabcan jireen ama xoolo dhaqatay ahaayeen xooluhu markay gacanta ka baxaanna dadka waxaa si toosa u taabanaya duruuftii yani waxaan soo xusuustay mararka qaarkood bilowgii sagaashamaadkii inkastoo ay ka sahlanayd abaartu tii 93 haddana dadka waxaa dhaafay xoolihii ay haysteen taasi markaa waxay keentay barakac iyo burbur dadka hantidoodu ku yimaada iyo qax ay galaan markaa meeshii ay nolol u raadsan karaan waxaa intaa ku biirtay abaartu inay keentay dadkii dalagyada beeran lahaa iyaga laftirkooda mar haddii laba xilli oo isku xigta roob di'i waayo inay noqoto culays ku dhacaya dadkii danlayda ahaa ee beeralayda ahaa iyaga abaartaasi guud ahaan Soomaaliya way saamaysay laakiin Jubbaland markii la yiraahdo deegaanada abaarta ku dhacday oo hantidoodii baa baxday kuwana waxaa soo fuulay culays badan oo waa lagu soo qaxay oo dadkii deegaanada kale ka yimid baayeen salahan deegaanadan hadda Badhaadhe district iyo Afmadow waxay u badnaayeen dad la dhaqda xoolaha nugulka la yiraahdo waxaa dhaafay xoolahoodii taas markaa waxay keentay dadkaasi inay gacmahoodu dhulka qabsadaan deegaanada qaarkood sida Baardheere Doolow Doobley Kismaayo waxaa iyagana ku dhacay inay dad badan oo ka soo barakacay deegaano kale oo iyaga ka baxsan oo ka fogfog inay soo saareen culays oo ay dul yimaadeen taasina ay noqotay dadkii iyagoo xaalad culus oo kale ku jiray inay kuwaasina ay dul fuulaan oo culayskaasi uu ku noqdo mid inta badan culays dadkiina ku ah laba qaawan isma qaadana macnaheedu uu noqon karayo middaa daraaddeed ama sababtaasaa markaa waxay keentay inay abaartu noqoto mid qof walba gurigiisa uu ka dareemayo waxaa abaarta qayb ka noqotay duruufaha adag ee caalamku uu ku jiro oo keenay sicir barar badan sababtoo ah marka dagaalla ay meelo ka dhacaan oo culays adduunka uu si u soo wajaho
adduunkan aad arkaysaan waa kubad yar kubaddaa yarina saamaynteeda ay leedahay waxa meel ka dhacay meesha kale toos buu u taabanaya ismaynaan lahayn dagaalka Ukraine iyo ka socda Ruushka yaa wuxuu soo gaarayaa Soomaaliya ama geeska Afrika oo saamaynta badan uu ku yeelanaya shidaalkii baa qaaliyoobay cuntadii baa kacday sababta globalkan adduunku waa wax isku xidhan meeshii wax ka dhacaani cid walba saamaynteeda ay ku yeelanaysaa waa culays jira oo ciladiisa iska leh oo iyaduna abaartii ay ku darsantay ascaartii maciishada oo kacday oo ay sababtu tahay naqlintii iyo transportationkii iyo gaadiidkii iyo waxa la markuu kaco ama meelaha ugu badan ee adduunka qamadiga iyo laga beeri jiray laga waayo ama kuwii si kale gaas iyo uga isticmaali jiray loo waayo ascaarta ay barato waxay noqonaysaa mid saamayn ku yeelata dadkii abaarta ku dhacday wixii ay gadan lahaayeen ama waxay heli lahaayeen lafteeda ascaartaas ama sicir bararkaas ay keentay masiibadaas dagaal ee dowladahaas aad inooga fog Yurubta bari iyo bariga fog ku yaalay waxay saamayn ku yeelatay maciishadii iyo duruuftii jirtay waxa abaarta qayb ka ah kooxaha nabadiidka oo iyaga laftirkooda mushkilad ku noqday oo qofkii xataa dalag beeran lahaa ay oranayaan dalaggan aad beeranayso falka lacag baad ka bixin oo markaad beerto lacag baad ka bixin oo marka ay ku soo go'do lacag baad ka bixinaysaa oo qofkii ay isu bixinayeen oo xoolihii oo dhamaaday ay oranayaan waxbaad ka bixinaysaa wali xooluhu ma gadmayaan lacag baad siinaysaa lacagtaasaan ka waran xoolihii baa baabaya qaado taasina ay tahay abaar kale oo gacan ku samaysa oo culayskeedu la saaran yahay oo aan u baahanahay inaan isugu geyno dadka abaarta laga xoreynayo in lagu daro nabadiidkaas munxarifiintaas nimanka mujrimiinta iyagana dagaalkooda inay qayb ka noqonayso dalaga la soo saaray iyo abaarta lala dagaalamay iyo waxa la sameeyo oo dhan inay qaybta koowaad ka noqonayso waxa ay dawladda Jubbaland qayb ka noqotay dadka qaarkood in loo sameeyo guryo iyo dib u dejin waxyaalaha caqabadaha aragna waxa kamid ah kana dejinaysa guriga u sameynayso kii magaalada joogay u dhawaayay isay lafsu dariska lahaaba baahan duruuftii ay haysaa culayskii uu hayaa mushkiladdu ay kor taagan tahay marka waxay noqonaysaa kanaad wuxuu ururinaysaa kan kale inayna islaamin taa markaa dhulkii waan bixinay waxaan isku daynay wax kasta oo aan samayn karayna inaan qayb ka noqono waxaan u baahanahay markaa cid kasta oo wax ku dari kartaay inay arrintaas dadka dhiban oo maanta iyadu awlawiyaadka priority-ga ah hay'adaha shaqada kun ay mar walba ka hadlaan iyagoo IDBs-kii hore iyo kuwii ritaaniiska ahaa iyo intaasoo dhan ay yaalaan inay maanta culayska intaa leegoo saarana gurba degdega loo sameeyo dadkaana wixii laga qaban karo laga qabto annaguna aan dowlad ahaan wixii aan samayn karan iyo wixii aan ka gaari karo aan ka gaarno siyaasadda guud ee dalku markaan Jubbaland soo qaato waxay ahayd culayska ugu badan dadka uu soo gaaray systemkii dowladnimo jiitanka doorasho culaysyada yimidi meelaha ay danqashada tooska iyo dhibaato u taabatay baan ahay alxamdulillah Soomaaliya waxay sanadihii jiray ku soo jirtay siyaasad qori isu dhiiba doorasho inay dhacdo la isku wareejiyo waqtigeeda la qaato teeramka la ilaaliyo laakiin macaalasaf shadiid waxaa dhacay teeramkii u dambeeyey muddadii oo jiitantay iyo nooc dictatorship cusub oo Soomaaliya aan loo sidii laga filayay iyo wixii ay ku soconaysay aan ahayn inay noqotay teeramkaasi annaguna aan ahayn kuwii u faruuraa sidii ninkii la yidhi berbere dabayl badan baa ka dhaxaysa ee yidhi adoo ma u faruurayd oo kale inaan annagu u faruurayn oo ay noqotay wixii aan sidaa yeelin saasaa la yeelayaa ciddaan waxaan samaynin waxaana ku dhacaya falilaahi alxamdu walman maanta doorashaa dhacday isbeddel baa yimid waxaan rajaynayaa inaanan ku qadi doonin dhibaatadii aan u faruurayn ee waddanka 5 sano ka dhacdayna dowladda Soomaaliyeed iyo shucuubta Soomaaliyeed bal inay il gaar intii lagu soo fiiriyo
la yidhaha war qoladaasi dhibkii dhacay way u faruraayeen oo iyaga dhib gooniyaa hayey oo shabaab iyo horumar iyo dagaal kale iyo waxaanu gallay ma jireen waxaanu taagnaynun war ihbaatul wujuud wax la yidhaha jiritaan warbal aan jirno keliya aan intaa ku dagaalamaynin in maanta arrintaasoo naga soo dhammaatay aan rajaynayo isbeddelkaasi inuu wax badan soo kordhin doono aan u mahad celinayo una hambalyeynayo madaxweynaha cusub ee la doortay oo aan odhan karo khibrad buu lahaa sababtoo teeram horuu soo maamulay wuxuu garanayaa halhayskiisii ahaa oo hadda uu ku bedelay qabyo ninkeedaa dhammaystira soomaali heshiisa dunidana heshiis la'ah in middaa intii laga dhabeeyo bal dowladnimadii soomaaliya aduudka ahaydna laysu soo dhoweeyo dadkana laysu soo jiido wixii dhacay ee tabasho ahaydna la xalliyo taasaan aada u rajaynaya waan uga mahad celinayaa baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan kuwa jubbaland ka baxay ee ka tegey iyo kuwa guudba isbeddelkaas waxaana rajaynayaa inay shaqadoodana sii wadaan dowladnimadana laga shaqeeyo anoo guud ahaan u mahad celinaya shabaab waxay mujtamaca u dhexgaleen dhinacyo badan waxay u dhexgaleen sida suuskii oo kale baashii waxaan raashinka galo oo kale sidiisii oo kale waxay isticmaalayaan inay odayaal iyo waxgarad iyo ganacsato cid walba ay ugu hanjabaan sidaa iyo sidaa yeela si aan ay gaadhaan hadda in la iska ilaaliyo inaan howlgallo loo bixin waxaan u mahad celinayaa ciidamada jubbaland waxaan u mahad celinayaa ciidanka danab waxaan u mahad celinayaa ciidankan SNA ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee deegaanada ka howlgala oo si geesinimo leh maalin walba dagaalka ugu jira dagaalkaas oo macnihiisu uu yahay inay naftooda u huraan dhibka ay dadkaas ku hayaan walaalahoodna inay ka qaadaan laakiin waxaa cilada oo aan ka warhaynaa oo shabaabku ay samaynayaan inay u bedelaan propaganda howlgallada la samaynayo ama saaxiibadan ha noqoto ama amisom ha noqoto ama Soomaalidaba ha noqoto aan galayno in loo turjumo oo iyagu bareesha ku saaraan oo la yiraahdo arrintaas sax ma aha dad baa wax la yeeleeyay kana la sameeyay kiisas cadcad oo diyaaradu kor taagan tahay oo telefoon la hagayo oo la yaqaano yaantee la soo hadlaan buu xileen waxaad tiraahdaan shabaab ma ahayn dad shacabaa la laayay kana la yeelay arrintaasi ma qabato ciidanka xildhibaanada odayaasha wasiirada madaxda kale kulligood waxgaradku ganacsatadu ha ka feejignaadeen wixii ku saabsan mujtamacooda dhibaato u geysanaya ee la dhex marayo ee iyagoo aan qofkan uuna garanaynin intii la soo dhex maro uu ka turjumayo ama uu ka hadlayo wax markaa uuna garanaynin cidda u soo dhiibtay aad ha looga taxadaro hana loo mahad celiyo ciidamada hana laga warhayo hana loo tacsiyeeyo hana loogu hambaliyeeyo kii dagaalkay galaane ha la xaq dhowro ciidanka ha la ilaaliyo xuquuqdooda ha la dhiirigeliyo ha la geesinimo geliyo arrintaasi yayna keenin wax warwareega amniga iyo la dagaalanka al-shabaab muddadaa 5 sano ah waxaa cidhiiri nagu noqotay inaan shabaab la dagaalanno iska daa inaan deegaan xoreyneen maalin walba dhimasho iyo dhaawac baan leenahay maalin walba difaac baan ku jiraa ma aanaan helin dowlad Soomaaliyeed wax kaalmo ah oo dagaalka ama ku saabsan ama logistic xataa ciidanku qaadanayaan iyadoo aan xuquuq kale oo heshiisyadii baydhabo 2017 iyo kulli London iyo kulli wixii amniga aan kaga heshiinay markii laga soo tago ma ayna dhicin xataa rasaas gorod rasaasa oo dagaalka aan ku galay inaan u helo bal waxa laga yaabaa dowladnimada Soomaaliya inay shabaabka taraysay wixii dowladnimada lagu tari lahaa oo shabaabku ay nooga gacan haadis badnaayeen intaas marka laga soo gudbo waxaan rabnaa la dagaalanka al-shabaab inuu maanta noo noqdo ajende sababtoo ah nin barkii qalan yahay ama neef barkii qalan yahay barkiisa kale waxba lagama sheego waxaan u baahannahay inaan hadda isu diyaarino inaan xoreyno dagaal u diyaar garowno Soomaali oo dhan aan uga baahi badannahay inaan caasimadayadii iyo deegaanadanadii iyo socodkoodii aan ka shaqeyno aanan rajaynayo kulankanagii ugu horeeyay ee aanu golihii ku yeelanay intii madaxweynaha la doortay waxaanu ku heshiinay
1 2 3 4 inay noqoto deegaanada oo la xoreeyay iyo shabaab oo lala dagaalamo iyadoon shabaab lala dagaalamin lagama hadli karo doorasho qof iyo coda iyo sidana la yeelaya iyo waxaas oo dhan hoos u dhaca dhaqaalaha ee adduunka ka dhacay wuxuu sababay sare u kaca sidaan hadda abaarta ku soo sheegayay qiimaha ashyaada daruuriga oo dhan oo shidaalku ugu horeeyo raashinka waxaa kaloo iyaduna masiibo kale ahayd covid-19 oo isaguna ahaa wayfis mar walba soo kaca ama mawjado xanuunno wata caqabadahooda leh kala xidhxidhnaantu ay qayb ka sii tahay dhibaatada xanuunka qof ku dhacaysa oo iyaduna ay si toosa u saamaysay noloshii iyo xidhiidhkii bulshada caalamka ka dhaxeeyey ay adkaanayso inaad hesho waxa aad doonayso ama inaad gaadho waxa aad hadafka aad rabto inaad xaqiijiso waxyaalaha aan rabnay oo la qabanaya waxaa ka mid a hadda oo ama xayiraaduhu ku jiraan ama hadda aan rabno inaan qabanno magaalada Kismaayo mashaariicda ka socotay jidada fayskii labaad la bilaabi doono waxaa magaaladan culays badan ku ah iyadoo meelihii biyuhu mari jireen oo dhan ay xidhan yihiin laakiin mashaariicdaasi iyadoo hadda la bilaabi lahaa uu roobku ka xidhay laakiin aan rajaynayo inay isbeddel ku iman doono Kismaayo iyo wadooyinkeeda iyo qaabka ay magaaladu shaqadeedu ku socon doonto waxaa kaloo jira oo inoo ooli doonto iyaduna mashaariic badan oo ku xidhan kawnsilada ama golayaasha deegaanka sababtaa boolisiga dowladda federaalka wuxuu ahaa 3 heer dowladeed in la dhammaystiro oo heerka federaalka heerkan dowladaha xubnaha ka ah dowlad goboleedyada dowladda federaalka iyo heerka localka ama waxaa loo yidhahdaa kawnsilada ama golayaasha deegaanka oo ah iyagu kuwa toos isu maamulaya mashaariic badan baa la xidhiidha mashruucan GBLG-ga oo kale wuxuu wataa qorshihiisa oo mutakaamila ama jidadka ha noqoto iskuullada ha noqoto isbitaallada ha noqoto mashaariicda horumarinta xafiisyada dowladda intaasoo dhan waxay ka mid yihiin mashruucaas taas markaa waxaan ka bilownay degmada Afmadow oon rajaynaya inaan jidadkana loo furi doono mashaariicda qaarkoodna ay ka bilowdeen inta kale culaysku uu jidadku ay sababayaan inay furi doonto waxaa ku xigi doonta ceelwa waxaa ku xigaysa garbaarey oo haluuma jarra halkaas ka soconayaan waxaan rajaynayaa haddii kawnsiladaas ama golayaashaas deegaanka la dhiso in wax badan oo ishayshaysad maamulada ka yimaada oo dhaliin iyo dhaleecayna inay meesha ka bixi doonto taasoo aan isleeyahay wax badan bay inoo qaban doontaa arrinta gobolka Gedo oo dadku xaalado badan ay ka taagnaayeen dhowrkiina sano la soo dhaafayna la dareemayay Jubbaland barnaamijkaas Gedo iyo loo kala qaadayay Jubbaland inteeda kale arrintaasi ma ahayn arrin shacab ka timid ma ahayn arrin dadka ka timid ma ahayn arrin qabiil ku salaysan waxay ahayd faragelin dowladdii federaalka xilligaa jirtay ay la timid oo ay sababteeda iska lahayd waxaan rajaynayaa dadkaasi in la isasaamaxo shirar dib u heshiisiina loo qabto dowladda federaalka aanu ku heshiinay wixii khaldamay in la saxo wixii federal level ku khaldamay federal level in loo saxo wixii state-ana state-ka in loo saxo dadka joogay reer Jubbaland ay isku wada mid yihiin aan loona baahnayn khilaaf iyo wax iska sheeg iyo media la isaga jawaab midkoodna ay noqonayso in sida ugu wanaagsan ee dadku u macaamil karaan loo macaamilo waxa ugu wanaagsan ee la sameyn karo la sameeyo Jubbaland waxay ku dhisantay dib u heshiisiin waan garanaynaa meesha laga soo qaaday waan garanaynaa siraaca ka jiray waxay ku sii jiri kartaa dib u heshiisiin wada hadal gacmaha la isqabsado walaalnimo waxaan ku soo jiidnay oon ku soo dagaalamaynay oon maanta soo gaarnay inaan ilaalino jiritaan iyadoo caqabad kasta oo dhici karto qof bini aadan uu gacan ku sameeyo aan ka tabanayno in lagu sameeyo haddana waxay noo suurto gashay maanta inaan soo gaarno meel lagu wada hadli karo arrinta Gedana lagu xallin karayo dowladda federaalkiina aan rajaynayo doorka ay ku leedahay iyo wixii raadee tii hore halaysay inay hagaajiso wixii annaga nala gudboonna aan doonayo annagoo odayaasha
siyaasiyiinta waxgaradka xildhibaanadiina oo matalaya baarlamaanka deegaanada inaan kulligood iyadoon ka tala qaadanayno dariiqa ugu wanaagsan ee kiiskaas aan ku xallin karaynana lagu xallinayo waxaan rabaa inaan u soo jeediyo iyadoo aan maalin dhow soo kordhinay laba deegaan oo ahayd buurdhuubo oo muddo badan aan isdaba jiitamayna iyo dhoobley in golaha wasiirada anoo uga mahadcelinaya ay ku ansixiyeen fadhigoodii dhoobley loona soo gudbin doono baarlamaanku inay ansixiyaan iyaguna haddii ilaahay dhaa xilligai arrintaas soo gaadho waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baarlamaanka jubbaland inta baarlamaan ee soomaaliya ka jirta waa baarlamaanka ugu adkaysiga badan waxaan isleeyahay dowladda federaalkii hadday heli lahayd baarlamaanka jubbaland maanta jooga oo kale caqabado badan oo maanta federaalka ka dhacay kamayna dhaceen waxay garan karaan ay u dulqaateen waxay ku soo shaqeeyeen duruufo adag waxay u dulqaateen dhib badan oo dhaqaale xumo iyo si walba u soo maray iyagoo dareemaya xaaladda ay ku nool yihiin oy dadkooda la qaybsanayaan waxay u dulqaateen iyagoo aan waxba helin haddana intay maalin walba gabdhuhu iyo wiilashoo baxaan oy furimaha tagaan oy buskud iyo waxay dubi karaan dubaan inay ciidanka maalin walba ku dhex jiraan baarlamaanka waxaan leeyahay idinka iyo guddoonkiina waan idiin mahadcelinayaa waan idiin mahadcelinayaa waan idiin mahadcelinayaa mahadoo dhan ilaahay bay u sugnaatay uma idinkaa iskale wixii maanta ka dambeeyana insha allah roobna wuu da-ay xuquuqdan aan leenahay ee dowladda aan ku leenahayna waan helaynaa wixii annagu aan samaysan karana waan samaysanaynaa fadhigu waa inoo furan yahay kal fadhigu aad baad u mahadsantihiin aadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu